Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti kulan kula qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Ra'iisul Wasaaraha ayaa wafdiga uu hogaaminayay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo waliba wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, iyadoo sidoo kalena ay ku weheliyeen xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb qaadanaya siyahayaha safaaradda Soomaaliya u fadhiya dalkani Jabuuti, isla markaana qunsulka safaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe. Dhinaca Jabuuti ayaa kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Yuusuf Suge, wasiirka difaaca ee dalkani Jabuuti Cali Xasan Bahdoon, agaasimaha guud ee madaxtooyada dalkani Jabuuti iyo sidoo kale agaasimaha maamulka dekedaha waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti Abubakar Xaddi. waxaana kulankani la iskuga soo qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee labada dal Soomaaliya iyo Jabuuti, iskaashiga walaalnimo iyo cilaaqaadka ka dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Jabuuti. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uga warbixiyay horumarka dowladda Soomaaliya ay iminka ka gaartay dhinacyada kala duwan ee horumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha intaba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa Ra'iisul Wasaaraha dalka iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya ku amaanay dadaalka xooggan ee ugu jiraan sidii Soomaaliya ay markale cagaheeda isugu taagi lahayd. Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa waxaa sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti uu soo gaarsiiyay salaan diiran iyo fariin uu uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulankan ayaa waxaa sidoo kale la isula soo qaaday heshiis labada dal ay ku kala saxiixdeen dhawaan waddankani Jabuuti oo ay u kala saxiixeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti. markii kulankaasi uu soo idlaaday ayaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Ra'iisul Wasaaraha dalkani Jamhuuriyadda Jabuuti waxay warbaahinta uga warameen kulankan iyo ahmiyadda gaarka ay leeyihiin. waa mahadsantahay maantay madaxweynaha Ra'iisul Wasaaraha iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda reer Jabuuti ayaan la kulmay. waxaan marka hore uga mahad celiyay shacabka reer Jabuuti oo matalaya madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaarihiisu hiilka ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin. waxaan u sheegay laga soo bilaabo Jabuuti 1 Jabuuti 2 iyo Carta in ay ahayd wixii dhaliyay dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta maraysa meel wanaagsan. inaan shacabka reer Jabuuti uga mahad celino dadaalkii ay nala galab istaageen, dhiiggii ay ku bixiyeen hiil walaal iyo ciidamada reer Jabuuti ayaa maanta waxa uu dhaliyay ummadda Soomaaliyeed waddankeeda inuu marayo meel wanaagsan. waxaan u sheegay madaxweynaha iyo Ra'iisul Wasaaraha in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay aad ula sii shaqeyso dawladda Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti oo walaalahanahay ahna dalka aan isugu dhownahay. maadaama marka Soomaaliya ay soo hagaagayso inaan bilaawno sida aan uga wada shaqeyn lahayn arrimaha dhaqaalaha, arrimaha ganacsiga, arrimaha isu socodka, dib u dhiska dalka, in dawladda Jabuuti iyo shacabkeedu ay gacan naga siiyaan. waxa uu ahaa wada hadal aad u wanaagsan, aad u hufan, ay ku dheehan tahay walaalnimo iyo kalgacaltooyo. waxaana loo soo dhaweeyay si aad u wanaagsan oo iyaduna aan aad ugu riyaaqnay. wada hadalladina waxay ahaayeen wada hadallo aad u wanaagsan. waxaana rajayn doonaa inay tusaale u noqon doonto qaabka mustaqbalka aan u sii wada shaqeyn doono haddii Ilaahay yiraahdo. ujeedadeedu waxay tahay sii xoojinta wada shaqeynta labada waddan, annagoo diiradda saaraynay xoojinta amniga labada waddan, dib u dhiska ciidamada dalka Soomaaliyeed, wada shaqeynta sidii dhaqaalaha Geeska Afrika loo kobcin lahaa, gaar ahaan Soomaaliya hadda iyo dawladda Jabuuti sida ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga hadda ka socda dalka Soomaaliyeed, iyo inaan iska kaashano siyaasadda labada waddan, siyaasadda Geeska Afrika, siyaasadda dunida, iyo sida dawladda Jabuuti gaar ahaan madaxweynaha sharafta leh madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo aan uga waday fariimo hufan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu noola qaadi lahaa shaqooyinkaas aan ku guda jirno. marka la soo koobo shirarkii aan galnay si wanaagsan ayay u dhaceen, si wanaagsanna waa naloo soo dhaweeyay. waa mahadsan. asaaska dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta taagan oo ummadda Soomaaliyeed ay arkaan iftiin ka duwan kii hore, waxaa buddhig u ahaa dadaalka dawladda iyo shacabka reer Jabuuti. hadda waxaan soo gaarnay waqtiga aan wax wada qabsan lahayn. Soomaaliya hadda waxay maraysaa waqtigii iyada la maalgashan lahaa.
waxaan isweydaarsanay sidii aan u kala baran lahayn sidii aan hay-adaha dowladda labada dowladood aan u dhisi lahayn sidii aan maalgashi u samayn lahayn sidii aan isugu xiri lahayn labada wadan iyo qaaraddaba waxyaabo badan oo Djibouti aan ka baran karnaa jirto oo ah siday ula dhaqmaan dunida siday dalkooda dib ugu dhisaan taariikhda ay soo mareen inta anagu aan dhibaatada ku jirnay laakiin markii la soo koobo hadda waxaan ku sii ballanay inaan gacmaha isii qabsano maadaama aan nahay laba shacab oo walaalaha. Le premier ministre somalien est arrivé à notre invitation à Djibouti et il nous a expliqué le nouveau visage de la Somalie. Ce n'est pas le visage que toute personne a de ce pays. La Somalie a évolué. La Somalie n'est pas uniquement un pays qui lutte contre le terrorisme. La Somalie a nettement évolué. C'est ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui. C'est d'abord le combat pour l'économie, la stabilité, la construction. Ils sont passés dans la phase de construction. Ce n'est plus, ils ne sont pas dans la phase de la lutte contre le terrorisme, même si